aan ku bilaabay daawadayaal dhinaca kale komishanka doorashooyinka Somaliland oo ku guda jira howlahoodii diyaar garowga maalinta bixinta iyo tababarada shaqaalaha komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa gaaray gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Cerigabo waxaanay magaalada Cerigabo maanta ku qabteen tababar ku aadan sidii xubnaha komishanka doorashooyinka Somaliland u qaabilsan gobolka Sanaag iyo deegaanada hoos yimaada ay maalinta doorashada uga gaashaaman lahaayeen ama ugu sii diyaar garoobi lahaayeen gudoomiyaha guud ee komishanka doorashooyinka Somaliland Muuse Yuusuf iyo xubnaha komishanka oo ay wehelinayaan barasaabka gobolka Sanaag iyo xubnaha ka tirsan madaxda gobolka oo ka mid yahay maayirka degmada Cerigabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa maanta tababarkani ka qayb galay isla marhaantaana dardaaran iyo wacyigelin muhiim ah siiyay shaqaalihii la siinayay tababarka ka tirsan komishanka doorashooyinka Somaliland gaar ahaan gobolka Sanaag balila daawada muuqaalkan inooga yimaaday gobolka Sanaag ee magaaladiisa Cerigabo oo lagu bixinayo tababarka ku aadan doorashooyinka Somaliland waxaan maanta idin la nimid dardaarankaas iyo inaanu markhaati ka noqono ka komishan ahaan inaanu wax walaal u baahan tihiin si aad u shaqeysaan qaranka ugu shaqeysaan aanu anagu miiska idin soo saarayno maalinta tababarku dhamaado waa la idin dhaarinayaa mas'uuliyad aydan hore u qaadin ba aad culays ay halka markaad albaabka ka baxdaan aad qaadaysaan waa la soo sheegay waxba ku noqon maayo mas'uuliyadaas oo ah dhaarta iyo inaad qaranka u shaqeynaysaan waxaan yara taabanayaa san klaaska kale ugu soo sheegay doorashadu waxay ka wanaagsanaataa ama ka xumaataa goobtana waxa ka shaqeynaya sida xeerku dhigayo gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka xoghayaha saddexdaas role ba saddexda koorka ama ugu muhiimsan inta kale waa caawiyaal hadday ciidan tahay iyo hadday safaagad tahayba saddexdaa waxaanu awood dheeraada u saarnay inaanu idin fahansiino shaqadiina iyo mas'uuliyadda idin saaran casharadana fiidiyoyaana waanu idin diyaarin waxaan idinka rajaynaynaa insha Allah inaad casharada sidooda aad ugu dabiqi doontaan goob kasto aad tagtaan dalka ilaa maantana lama oga meel aad tegaysaan meel wala tagtaan sida loo sheegay waxaad ku tegaysaan qofku yaqiintiisa wuxuu aaminsan yahay oo ku shaqeynaya wuxuu ku tegayaa gobolkii uu ka yimid wuxuu ku tegayaa jaamacaddu ka yimid ogow markaa haddii halkaa khalad aad samaysid saddexdaas baad ku gafaysaa marka ugu horeysa responsibility iyo mas'uuliyaddii aad qaaday ayaa dayacmayso mas'uuliyaddeeda adaa leh mar labaad waxaa la oranayaa inankani ama inantani waxay ka yimaadeen gobolka Sanaag mar saddexaadna waxaa la oranayaa jaamacadda Sanaag University hadda u dagadeed sumcaddaas waa mid oolayso commissionka oolaysa commissionkuna wuxuu go'aan ku gaari karaa inaan ardayda jaamacadda Sanaag laga qaadanba mustaqbalka haddii shaqo xumo la idinku arko la idinka qaadan maayo ogaada waxaa jiri jirtay bari shaqaale Hargeysa iyo Burco iyo Berberaynta halkan jaamacaddii ay buuxin weyday tiradii looga baahnaa laga qaadan jiray marka maanta waxaad halkan ku fadhidaan ilaahay fadligii iyo dadaal ay galeen mas'uuliyiintan inoo jooga oo maayirku ugu wan yahay iyo jaamacadda halkan soo gaadhay baad ku fadhidaan ilaaliya magacaas iyo sharaftaas yaan laydinka soo caban goob kasto aad tagtaan waxaan kaloo ku darayaa doorashooyinku way dhib badan yihiin laga yaabo 20 saacadood inaad taagnaatid ama aad sanduuqaas haysid waa inaad u dhabar adeegtaan muxuu ahaa goobta waa inaad u dhabar adeegtaan u adeegidda odayaha oo kala duwan qaar naafaa baa idin imanaya waa inaad u adeegtid qaar aan waxba akhriyin baa idin imanaya waa inaad u adeegtid qaar xisbi dabada ka wada idin imanaya waa inaad sharciga ugu adkaatid qaar ururo dabada ka qaar reer eriyaan baa idin imanaya idinku sharcigu ku adkaada sharciga haddaad ku adkaataan iyo dhaarta wax haba yaraatay idinka xumaanaya if iyo aakhiro ma jiraan marka intaas uma idin faraynaa aad iyo aad ba mahadsantihiin waxaan ugu mahad celinayaa muxuu ahaa khaasatan jaamacadda
oo si fiican noola shaqaysay waxaan rajaynaynaa insha Allah ayaamaha tababar ku socdo inay si fiican inoogu dhamaadaan aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan u nimid maanta inaanu bal gudoomiyihii komishanka iyo anoo komishineeradii gobolkan ku qorneyd inaanu tababarkan idin soo furno waxaan idin rajaynayaa tababarkan maanta la idin siinayo inuu yahay tababarkii aad la tegi lahaydeen goobaha oo kaasoo gudoomiyaha roolkiisa xokayaha roolkiisa ku-xigeenka roolkiisa tababarkii iminka waa sii ballaarinay si goobtu ay noqoto mid sideeda isu dheelitiran oo fiican ay u noqoto ilaa gudoomiye ku-xigeenka waa ku tababarnay goobta fiidiyoyaa la idiin sameeyey aroortii marka goobta afurtaan oo kale ay isxusuusisaan nin waliba roolka uu leeyahay gudoomiyaha shaqadiisu maxay tahay gudoomiye ku-xigeenka shaqadiisu maxay tahay ciidanka ilaalada shaqadoodu maxay tahay iyadoo fiidiyowna waa helaysaan casharadaa maanta la idiin dhigayo waxaan rajaynaynaa inaad goobihiinni la tegi doontaan oo hawsha ku maamuli doontaan tababarku markuu idiin dhammaado waxaa imanaysa dhaartaas laydin dhaarinayana waxa weeyaan inaydaan xisbiye ahayn inaydaan qolo ahayn inaad dad dhexdhexaada tihiin inaad garsoorayaal tihiin maanta idinkay hawsha gacantiina ku jirta inaad doorashadana waa xaasaasi waa laba doorasho isa saaran dhalinyaradiina wax baratay ee jaamacadaha ka soo baxday oona awoodda saarnay in la tababaro ayaan doonaynaa inay si dhexdhexaada ay uga shaqeeyaan garsoorayaal baad tihiin inaa ummadda dhex u noqotaan goobta wixii ka xumaada ayuunbaa doorashada ka xumaada haddii goobtu hagaagto doorashadu way hagaagtay bay ka dhiganta goobihiina idinkaa gacmaha ku haya waxaan idinku dardaarayaa inaa iska ilaalisaan xisbiyo qolo garsoorayaal baad tihiin kitaab baa laydin mida ifyo aakhiro kitaabku kaa hari maayo haddaad been ku dhaarato aakhiradaadana waa kaa horeeya adduunkana waad ku carcaaraysaa marka inaad dhaartaa laydin dhaarinayo aydaan yaraysan inaad dhaartaas sideeda inta markaa u martaan sideeda aad ugu dhaqantaan oo musuq ka fogaataan oo waxaan ku idhi aad dhammaantiin iswacyigelisaan maanta waxaan ku faraxsanahay oo la idiin soo kordhiyeyna fiidiyoyadii baaba haysataan goob laysku qabsanaya anaa guddoomiye roolkaasaan leeyahay anaa xokayo roolkaas ma jirto waagu markuu berye intaan goobtaba la furin baaba shidanaysa marka intaa markaan ka tago kulley maanta jaamacad sanaag ahaan runtii farxad weyn bay noo tahay maadaama aanu projectka aadka u weyn aanu fulin doono insha allahu tacaala ardayda yadan qiimaha badanna aanu kalsooni badan aan runtii ku qabno aanu rajaynayno insha allahu tacaala inay noqon doonaan kuwo dalkoodana ugu hiiliya jaamacaddana runtii sumcad wanaagsan ugu keeno kelmadda dardaaranka ee runtii ardayda odhanayo maanta waxa weeye kulley inta halka joogta iyo inta kale dhegaysanaysaaba sumcadda jaamacadda xasiloonida dalka intuba waxay ku jiraan insha allahu tacaala sidaa u shaqaysaan haddii alla yari haddii qof runtii ka mid ah ardayda jaamacadda ay wax ka xumaadaan maanta wuxuu huwan yahay magacii jaamacadda sanaag sidaa laajigeed waxaa la odhan doonaa jaamacaddii sanaag ayaa waxaa khaladay wuxuu huwan yahay magacii gobolka sanaag markaasaa laajigeed in aad iyo aad looga taxadaro ta kale maadaama dhalinyaro tihiin mustaqbalka dalka innagaa iska leh runtii innaga waxaa inoo muhiima in dalku xasilooni uu ku galo doorashada ilaahayna waynu ka rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaana laynooga baahan yahay innaguna qof kasta oo komishanka ka shaqaynaya doorashada rool muhiima ayuu ku leeyahay hadduu guddoomiye yahay hadduu guddoomiye ku-xigeen yahay iyo hadduu xoghaye yahayba qof waliba rool muhiima ku leeyahay roolka waxa looga baahan yahay inuu ka soo baxo runtii sidaa komishaneerku sheegay waxay idin mari doontaan dhaartaasina waa halka ugu dambaysa ee la ismariyo kitaabka wax ka dambeeya oo loo noqdaa ma jiro insha allah kitaabka cadaaladda ku dhaarataana waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaynu dhammaanteen aynu ka run sheegno mas-uuliyad baad dareemi doontaan madaxnimaad dareemi doontaan bulshaa u shaqayn doontaan bulshadiinnia waxaa laydinka baahan yahay in qof waliba uu maarayn karo meesha uu joogo xilkiisana uu ka soo bixi doono insha allahu tacaala annaguna waxaan idinka rajaynaynaa inaa kuwo jaamacadda sumcad weyn usoo hooya insha allahu tacaala noqotaan dhammaan ardaydii jaamacadda sanaag marka laga tago ardayda freshka iyo ardayda dibloomka
way ka wada qayb qaadanayaan maanta ma jiro hal arday oo ka maqnaanaya taasina sumcad iyo farxad weyn ayay noo tahay commissionkana waan uga mahadnaqaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadalku intaas laydin sheegay ayuu ku dhan yahay hal banin xuma taro qof waliba xabaal gooniyu gelaya cidina raaci mayso wuxuu halkan ka sameeyana halkaas ugu tegaya madaxdii berituna waa tihiin haddaad tihiin hablaha iyo haddaad tihiin inamadaba madaxdii berito dalka ayuunbaa tihiin qofkii dulmi sameeyana isagu kaydu yahay qofkii wanaag sameeyana isagu kaydu yahay intaa ina xejisaan ilaahayna ka cabsataan ayaan ka rajaynaynaa inay magac soo hoysaan jaamacadda nagu soo hoysaan gobolka nagu soo hoysaan ayaanu doonaynaa qolada idinla hadashan intaas idiin sheegtay anagu intaasaan ku raacsannahay aad baa umahadsantihiin allah idin fududeeyo nasiibka a hesheen inaad commissioneers noqotaan mar labaadkana jaamacadda magaceeda iyo sumcaddeeda inaa ilaalisaan baa la marwan ah oo laydiin dardaarmaya marka saddexaad mas-uuliyad gaaraa jirta oo ku saaran qof shalay toole arday baad ahayd soo shaqo tegey oo jaamacaddiisii dhameeyey oo camalkii doonaya maantana waxaa tahay astaan qaran baa tahay sida commissioneerku sheegayey qaranku ama goobtuu ka qurux badanaya ama goobtuu ka xumaanaya mas-uuliyaddaana adigaa leh oo goobtii jooga goobtaada wixii ka dhaca mas-uuliyaddeeda adigaa leh waa laba mas-uuliyadood baa ku saaran mid ilaahay baa kugula xisaabtamaya midna waxaa kugula xisaabtamaya dadka iyo institutionkan ku soo dirtay mar walbana ta ilaahay kugula xisaabtamaya ka weyn waayo cid walbood ka dhowman kartaa laakiin ilaahay maad ka dhowman kartaa dhaar baa lagu marinayaa dhaarta waxaa lagu marinaya waa maxay dhexdhexaadnimo mid ordayaa ku imanaya kulanaya dhaarta ii jabi hadda dhaarta kulamada waxay soo hoyso arday baa tahay fresh baa tahay shaqaad doonaysaa camal baad doonaysaa muraayad wanaagsan inaad ilaahay la hortagtaa baad doonaysaa intiiba haddayd maalintaa qaranka qarribto way kaa qarrimayaan 100% baan taa huba inay kaa qarrimayaan dhaartan nin waliba qof waliba ha ilaaliyo inan waliba ha ilaaliso nin walibana ha ilaaliyo maanta hebel baan jecelahay hebel baan taageeri jiray hebel baan la socday adiga lagaama rabo iyo ifan xitaa hebela aad niyadda ka sii jeclaan lahayd waxaad u dhaaranaysaa waa dhexdhexaadnimo dhexdhexaadnimadaasaa qarankuna maanta kaaga baahan yahay waa qodobkaasoo waxaan weliba aada ugu adkaynayaa dhaartaa cidhib xumadeeda kulama laha kan kugu riixaya kula geli maayo ehelkaagaa kula gelaya hooyadaabaa kula gelaya aabbahaabaa kula gelaya walaalkaabaa kula gelaya naftaadaa kula gelaya madow baa lagu saaraya aan kaa hadhayn taa weeleeya oo meel saarta talabaadee taalla waxaa weeye ammaanka inaad la shaqaysaan askariga booliiska ka hortaagan ammaankaagu ka shaqaynaya laban laab ama saddex laab baa laga yaabaa in intiina halkaa joogta ka shaqaynaysaa salariga yaree la siinayaa inuu isagu ugu hooseeyaa baa laga yaabaa askariga karaamadiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisana ilaaliya qaynuunka iyo inta sharcigu ka siinayo ha ku qabsanina ammaankaagu mas-uul ka yahay weyga consequenceska u shaqaynaysaan buu mas-uul ka yahay waxaad shaqada internalka technicalka un baanu idinla lahayn laakiin mas-uuliyadda guud isagaa idinla leh ee ammaanka khusaysa isagana inaa u digto u maxaanku irahdaa dheganuglaataan oo maqashaan oo aydan meel walbaad joogtaan waxaa dhici karta anagu hadeer ma ogin annaga waa noo farxad inaad reer sanaag tihiin meel laydin geynayo hadeer ma ogin in gobol kale laydin rari doono in meel kale gobolka meelaha ka mida laydin geyn doono hadeer war kama hayno su-aasheedana ma aha guddoomiyaha inaanu weydiino shaqadeeda maaha shaqadoodu isagay tahay laakiin anagu dardaarankeegu waxa weeye meel walbo aad joogto ilaahay kaga cabso mas-uuliyadda ku saaran cid kalena ha ku raaligelin cid alle ka weyn qofkii ogiday isagay u taallaa isagay tiisa lagula xisaabtami doona haddii alla idmo ciidanka qarankana meel walbay joogaan inaad la shaqaysaan labadaa qodob baan ku darayaa waan u hambalyeyn daawadayaal intaas ayaynu ku eegaynaa guud ahaan muuqaaladii aynu ka helaynay gudaha Somaliland iyo warbixinihii dhinaca doorashooyinka iyo dagaalada ka soo cusboonaaday
gobolka Togdheer tan iyo intaynu ku kulmayno warbixintan xigta waa anigoo Sakariye Jeylaaniya iyo Cumar oo dhinaca kamarada iga caawinayay waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh